baarinimadu ciyaar maaha door bay ciyaaraysaa tijaabiya in badan oo gabdhihiina waan ka weynahay runtii anaa tijaabiyey xaaska aan qabo oo aan runtii aad u jeclahay ilaahay ha ii daaye yaa gabadha ayaa wallaahi hooyaday baa ii doortay wayna iga yarayd mana aanan aqoonin habeenna lama aanan sheekaysan yaa markay kuwo kale ay igu dagaalayeen gabar maa la aaminaa gabar aadan la sheekaysan oo aadan gabdhaha waqtigan dee waa la ii dooray nacas maataa marka lagu dooraaya annagoo gabdha ahaana nimanna loo doorine see adoo rag ee gabar lagugu dooraayaa dee waayahaye gabdhaha adiga aad sheegaysid ee aan la aaminaynin ee khatarta ah yaa aniga nin baan ahay garan maayee sow mid uun intay isku kay soo caddaysa xuuralciin isaga kay dhigi mayso yaa oo hadhowna seef iila soo bixi mayso carab dheer oo carraweela waxaan u xil saartay gabdhaha aa sheegaysid ee aan la aqoonin gabadhii aan u jeclaa hooyaday way iga weyn tahay da'daas way iga khibrad badan tahay khibraddaas waa hooyaday ijecel hooyanimadaas waa gabarnimadaas intee khibrad ah ayay hooyo isku darsatay hooyadaasaan u xil saartay gabadhaa inay iga soo jeeggarayso way aamustay marka waxaan idhi intaaba isku dar hadday gabadhaa hoosaasiso oo hooyo gabar fiican ay u malayso aanaysa ahayn baarinimadayda iyo ogolaanshahayga hooyo samictu wa ataact samcan wa taacan aan dhaho ayuu ilaahay iigu bedelaa gabadha iigu hagaajinayaa way aamustay gabadhii waa la ii keenay wallaahi qaahira eeraboorka iigu horeysay aragtideeda waa gabadhii dhammeed ee aan nolosha la wadaagi lahaa sanooyin iigama dhumin sida gabadhaadaas 6 sano aad wiilka ugu dhumisay gabadhaadaas kale aad 5 sano ugu lumisay adiga aad 3 sano wiilka ula socotay haddana uu kaa tegey markuu ku miirtay oo uu subugii iyo dheeftii iyo dhacaankii uu kaa miirtay mid kaluu haddana madaxa saartay soo ma ogid tu kaluu miiranayaa adigina wadaadadaad ku meeraysanaysaa laf iyo maqaar markaad noqotay 5 sano way dhuuqayey 5 sanaa la socday hadduu telefoonadii xirtay waa 5 cunug intii la dhali lahaa waqti badan kaa khasaaray soo maha aniga maalinna igama khasaarin bal saacadna igama khasaarin airboortkan ka soo kaxeeyey guriga markaan nimid dhowr habeen kadib tii iyo 2 kaloo ordaya waa kuwan wadaadkii bal midii uu lahaa hooyaa ii doortay aan soo aragna way yimaadeen awal yir anoo fadhiga gudahay ku jirtaa saddexdiiba dalaq gudahay u galeen in yar kadib gabadhii baa soo laabatay hadalkay itirima ilaawi waxay tiri maxamedow macallin maxamed baan ahaa markaa dacwad ma bilaabin macallin maxamedow waxay tiri hooyo gabadhii ku doortay gabar maaha insaan maahe waa malaa'ik iska dhaaf gabar kale oo aadan aqoonin aniga ha ii ogolaanin gurigaaga inaan imaado gabadhan waa lagaa bedelayaa waxaan ku idhi sidaad sheegaysid horta waa malaa'ik gartay waxa dooray aniga maaha nafsadaydan miskiintaana maahe hooyo macaanaa ii doortay tan in la bedelo iska dhaafe ka fogaadayaana idin bedelini inay idin bedesho maahana iyada lama bedela alxamdu lilah maanta waan wareegayaa waa aragtaan habeenba meel baan seexdaa soo maaha ya xaggeed jirtay iyo xaggeed ka timid goormad soo laaban wareeg badnida maba aqaani ka waran waxyaabahaasoo dhan waxaad raggii lugaha uga xidheen ya waxaad raggii lugaha uga xidheen soo ma garan ilaahay waxaan ka baryayaa iyadoo kale iyo kasii fiican allah idan ka yeelo uurkiina allah hagaajiyo akhlaaqdiina allah hagaajiyo mustaqbalka gabdhaheena allah hagaajiyo ilaahay waxaan ka baryaa rag malaa'iga allah idin siiyo rag madaxa idin saaran indhaha hortooda aad u joogtaan faraanta idin noqda wehel idin noqda ku dhowrsataan uwa saalixa ka heshaan allah idin siiyo